الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نهنئكم أحباب الحبيب أفضل النهاني وأطيب الأماني بمناسبة ذكر المولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد أحباب رسول الله إن شاء الله تعالى، أولا وحان مهد علينا إياه إلهي سبحانه وتعالى إلهي إيمانك نسيي ضد مسلمين نقدقي هذانا حبيبك أن محمد عليه الصلاة والسلام أمدي سنقدقي وأين كنا قني خير الأمم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. اللهم صل على سيدنا محمد. marka labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan axbaabta isugu timid nabiga jacaylkiisa calayhi salaatu wasalaam. khaasatan waxaan u mahad celinayaa culummada ajillada ah ee xafladdan ka soo qayb gashay ee wakhtigana soo siiyey ayagoo naga faa'iideynaya xilligooda qaaliga ah in ay nagu baraan nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam. rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa magaciisa la odhan jiray amsaan badan buu lahaayee muxammadun kii in badan la mahadiyey binu cabdillaahi buu ahaa. cabdullaahi ayaa dhalay binu cabdulmuطalib binu haashim binu cabdimanaaf binu qusay binu kilaab binu fihrin binu murata binu kacab binu lu'ay binu khaalib binu fihrin binu malik binu nadar binu kinaanata binu khusayma binu mudrikata binu ilyaas binu mudar binu nazaar binu macad binu cadnaan. intaas waa intay siyarku isku waafaqaan wixii ka sarreeya laakiin khilaaf ayaa soo arooray sidii culimmadu in badan wariyaan waxayna culimmadu ka gaabsadeen halka inay ku joojiyaan. laakiin cala alxaqiiqa rasuulkeenu abtirkiisu wuxuu galay calayhi salaatu wa nabiyullahi ismaaciil calaa nabiyina calayhi salaatu wasalaam oo ina nabi ibraahim oo ibnu khaliilillaahi ah. rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka saxiixaynka iyo kayrba ay wariyeen ninkii waasila binu al-asqa la odhan jiray muxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina allaha istafaa kinaanata min bani ismaaciil. riwaayinka qaar waxay ku soo arooreen ilaahay bani aadamku doortay wuxuuna ka doortay min waladi ismaaciil waladu ismaaciil la banu kinaana. laakiin xadiidka aanu riwaayadan hadda ii taalla waxa weeyaan ina allaha istafaa kinaanata min bani ismaaciil. qolada reer banu kinaana la yaayo awlaadu ismaaciil ka doortay. wastafaa min bani kinaanata qurayshan. reer banu kinaanana jilibka ama lafta layaa quraysh ayuu ka sii doortay ilaahay subxaanahu wa tacaala. wastafaa min qurayshin bani haashim. qurayshna reer banu haashim buu ka sii doortay. wastafaanii min bani haashim. reer banu haashimna anuu ilaahay iga doortay buu subxaanahu wa tacaala. markaasaa riwaayinka qaar meesha waxay geliyaan fa ana khiyaarun min khiyaarin min khiyaarin. waxaan ahay door la doortay oo mid la doortay laga sii doortay oo mid la doortay laga sii doortay. And he is the one whom Allah said to him, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, which means he was not sent except as a mercy to the people, the humans and the jinn. وَأَمَّا مَعَ أُمِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فهو الذي ورد عنه في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واستأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، فزارها النبي ووقف عند قبرها وبكى حتى من أبكى من معه من الصحابة.
The Prophet sallallahu alayhi wasallam, he said in the hadith that when I asked Allah for permission to visit the grave of my mother, He granted me that. So when the Prophet alayhi salatu wasalam, he went to the grave of his mother, he started crying until the companions who were with him also started crying. فَكَيْفَ أَنْتَ وَكَيْفَ هِيَ أَخْلَاقُكَ مَعَ أُمَّتِكَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ. So how are you and how are your manners with your mother? واذكروا أن أمه كانت قد ماتت فزار إلى قبرها ووقف عندها وبكى. أما أمك التي ما زالت على قيد الحياة كيف يعاملها؟ تبكي لأجلها أم تبكيها من ظلمك. marka aad barato nabiga awsaaftiisa maxabadiisa ku laazimaysa waxaad ogaanaysaa waxa lagugu sheegay ayaad ku ogaanaysaayo adoomada Ilaahay abuurtay oo dhan ka fadli badan inuu yahay waxa la siiyay markii aad xifdiso ama aad xusuusato oo aad tadkira ku samayso ayaad ogaanaysaa. marka rasuulka alayhi salaatu wasalaam sidii hadda aad ogeydeen oo culummadu ay ugu furfuranay aayaadkay ku furfuranayeen risaaladiisu naxariis bay ahayd. wama arsalnaaka ilaa rahmatan lil aalamiin ba ilaahay leeyahay. daatadiisuna naxariis bay ahayd. qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ba ilaahay leeyahay. fadliga ilaahay oo quraanka iyo shariicadii loo soo dhiibaya iyo raxmadda oo rasuulka la yiri ku farxa waxa kale oo dhan oo ku farxadaan iyada ay kaga khayr badan. daatadiisu naxariistaas ay ahayd. muaamaladiisu naxariis bay ahayd iyo dhaqankiisa oo ilaahayna leeyahay fa bima rahmatin min allahi nilta lahum. naxariis ilaahay xaqi kaaga timi daraadeed ayaad waxaad ula dhaqantaa dhaqan naxariis. waatii hadda kaga sheekeynayay qaabka uu u dhaqmahayay ama dadkiisa ula dhaqmahayay. markii qayb walba wax lagaga taabto waxa la rabaa inta lagu taabtay inay ku saamayso macrifada aad baratay oo aad ku ogaatay waxa uu yahay rasuulka alayhi salaatu wasalaam. axbaabta nabiga marhaban bikum baan leenahay. waxaan rabaa waqtiga gaaban inaan qasiido yar oo luqadeena Soomaaliga ah inaan soo bandhigo oo uu qoray abwaan da'yar. anigu malihi gabayga waxa qoray abwaan da'yar oo Soomaaliyeed oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Muumin Abaabe. magaciisa waxa naynastaas loo yaqaan Abaabe. gabaygan waxa la yiraahdaa Taaha ya Habiib. bismillaahi dabadeed taariikhda dahabka diiwaanka siirada tixyaroon ka daabacay oon uga dan leeyahay xaqa inaan ku daafaco iyo daaha nabigii tayyibkii udgoona duca iyo salaaniba ha noqdeen dushiisa deelka aan ka qaadee maqal iyo dareen wacan. tayyibkana sharafta leh waxa dihatay aamina qolad iyo duriyadana nasab daahir ah. dib kolkaad u raacdana waxa uu ka soo duxay dirkii nabi Ismaaciil. wuxuu dibad u soo baxay sanadkii daraaye xabashidu ku duuleen dhulka daahirka ah shimbiraha dilaaga cirka looga soo diray. dulucdeeda maansadan waxaa loogu magac daray dikrigii rasuulka dayibkan jeclaayow Taaha ya Habiibi duca iyo salaaniba ha noqdeen dushaade. dayixii iftiimee durba dhalashadiisii daafaha adduunka iyo cirka laga dareemee nuurkii ka daalacay wada gaaray dunidow. kii maalmo dabadeed dambarkii xaliimiyo dararteeda nuugee dusha ay ku qaadeen miyiga ay ula doortee reerkii danyarihii dunyadii u badatee maalkii u dararow. asagoo duleedkiiyo dibadda u ciyaar tegay kii malagu dooxee aadmiga dirkiisii laga soo dahirayee laabtiisa darayga dahab lagu sifeeyow. kii daalka nolosha iyo dacdarrada agoonta iyo diihaalka baahida ku dhadhamiyey dunideed ducafada jeclaayow.
naxariistii dunida u dayibkaan jeclaayow taaha yaa xabiibii duca iyo salaaniba ha noqdee dushaade isagoon da'weyneyn kii hawsha doortay reeraha deegaanka ah duunyada u raacee ku dadaalay noloshow isagoon duruufaha u dulqaadan karin oo qayrkii duleedkiyo weli degalka joogaan kii dowga dheer iyo u dawaafay shaam ee ganacsiga u dowree abudaalib raacee rayadiyo daruuraha dusha laga hareeyee dalaalimada raacee qoraxdii dabka ahayd fadkii lagaga dayree duqii raahibka ahaa mucjisada dareeme ee uga digay yahuude xilka loo diyaarshee loo diiday khaladkiiyo shirkigiiyo dadxumadee dembi laga ilaalshee dadku wada jeclaaye dabeecada habboon iyo samirkiiyo dulqaadkiyo daacadiiyo ammaanada magac loogu darayee darajada la saarow naxariistii dunidow dayibkaan jeclaayow taaha yaa xabiibii duca iyo salaaniba ha noqdeen dushaade kii khadiija diratee tijaarada u doonee barakada daraaddii maalkii durdurayee dookheedu raacee guurka ay ka dalabtee dariskiiyo qaraabada wada daadaheeyow dugsi iyo tacliin iyo isagoon duruus dhigan waxyigii ku soo degay kii loo daliishee daalaco la yariye malagii la soo diray ku akhriyey dushiisee sikatiga dareemee isku daday go-iisow muddo gaaban dabadeed udikii la yidhiyee loo diray makhluuqee dacwadii ballaarnayd 3 sanno dahsoonaan ugu habay dadkiisee dariskiiyo qaraabada wada daadaheeyow naxariistii dunidow dayibkaan jeclaayow taaha yaa xabiibii duca iyo salaaniba ha noqdee dushaade duulkii qureysheed markii ay ka diideen xaqa dib uga jeesteen kii daa'if tegayee sharciga u daliishow inkastooy dagaaleen daqarrana u geysteen carakaan dareemine iyaga u duceeyow dayibkaan jeclaayow taaha yaa xabiibii duca iyo salaaniba ha noqdeen dushaade daalkiiyo dhibaatada murugada dilaaga ah kii laga daweeyey maamuus da'weyn iyo martiqaadka deeqda leh dusha looga keenee daabadda la saaree qudus loo dawaafshee ku tukaday salaadee cidhka loola duulee kolba sama u dowree soo durug la yidhiyee malagii la soo diray darajada ku dhaafee dhex dabaashay nuurkee duca lagu salaamee isaguna dadkiisii dib u soo xasuustee nagu daray salaantow sala allahu calaa sayidina wa mowlaana muxamed isaguna dadkiisii dib u soo xasuustee nagu daray salaantee rabbi noo dawareeyow naxariistii dunidow dayibkaan jeclaayow taaha yaa xabiibii duca iyo salaaniba ha noqdee dushaade kii diinta awgeed uga tegay dalkiisa kii buuro dahabiyo daaraha adduunyada aakhire ka doortow dadka kii hanuunshee qalbigiiyo damiirkiiyo caqligaba daweeyow dulmigii kufaartiiyo jahligiiyo dadxumadii kii daadka raacshee xaqa noogu doorshow diintiiyo caqiidada nebigii u diriree daafacay islaamkow taaha yaa xabiibii wadku waa madaale adduunyada dusheedana duljalaalka mooyee cidba looma daayee kii dhaxalka doogga ah iyo diin xaniifaha aakhirana daliil u ah noloshana dastuur ah dunida uga tegayow maalinta dambaysee suurtu ay dayaantee buuraha la dumiyee ardadana la duubee sabaduna dilaacadee dakan xaalku uu yahay ee ay daleed qura dadku wada yimaadaan adigaa u doodoo u shafeeca doonee dayibkaan jeclaayow naxariistii dunidow raxmaddii daroortee rabbi noogu deeqow geesigii dagaalkow deeqsigii waxbixintow daacigii islaamkow duca iyo salaaniba ha noqdeen dushaade maxabbada dartaabaa jidhku ii dubaaxshaa nuurkaa i daaro galada naftaydiyo qalbigiiyo damiirkaad ku dahaaran tahayoo kama daalo weligay dikrigiiyo xuskaage adduunyada dusheedana dal intuu ku nool yahay demi maayo nuurkii aad dunida keentee dayibkaan jeclaayow naxariistii dunidow taaha yaa xabiibii duca iyo salaaniba ha noqdeen dushaade bashar kuuma diidani ay hooya dihatee eebbaa ku doorto xumo kaa dahirayoo darajada ku saaro dabci kugu ammaano magacaaga dahabka ah dukashada salaadiyo shahaadada ku darayoo dikrigaagu weligaa darayoobi maaye dayibkaan jeclaayow taaha yaa xabiibii duca iyo salaaniba ha noqdeen dushaade kuwa daaqiga ah ee magacaaga diidee ka danqada xuskaaga u dulqaadan maynee dirir iyo col baan nahay garashadu diyaa iyo waa nuurku deeqo kugu haga dariiqo garashadu diyaa iyo waa nuurku deeqo kugu haga dariiqe kuwa laga daboolee araggoodu dadan yahay ee daylaqaadkiiyo sheekada darxumada warqadaha ku daabacay kuma duuli karayaan darajada rasuulkee
dayaxa cirkee sare waa nin diga ku tuuree ku darqaday ushiisee daqar muu u geysani balse dooddu waxay tahay waa dabacsanaantiiyo doqonnimada laga helay muslimiinta dunida ee ma ay dacayadeeyeen nebigii dadnimadee wasala allahuma calaa sayidina wamawlaana muxamedin الnabiyi اlummiyi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Allah subhanahu wa ta'ala, He's manifested His pleasure by bringing His servants together to commemorate and celebrate what should be celebrated, and that is the birth of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the significance and the purpose and the life of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and of course the message that he came with. And so to celebrate it, because he came as Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, rahmatun lil alameen, a mercy to all of man and jinn kind all together, all of the worlds. And so we're here to celebrate this mercy and to reflect on it. And I was asked to say something about the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the love that we should have and the love that we need to have. And love is kind of one of those difficult things to define because it's kind of, you just know it when you see it. You can't really say, but it's to, when you look at the hal of the awliya and you see the state that they're in with Allah subhanahu wa ta'ala, it's to have what they have is love, the real love of Allah subhanahu wa ta'ala. And it's impossible to separate loving the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam with loving Allah subhanahu wa ta'ala. It's a fallacy to say you could love Allah and care less about what He's sent as an exemplar for how we should be, or to say that you love the messenger sallallahu alaihi wasallam without having a love of Allah subhanahu wa ta'ala. So they go hand in hand, and this is why the shahadatain is la ilaha illallah and is also Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They're inseparable. And so the objective here is not this gathering itself. We don't go home and say, well, we did what we came to do and we're happy and content with that, mission accomplished. But rather the objective is looking upon Allah subhanahu wa ta'ala. So this is just one of the asbab of the objective. It's not to come and have a mawlid and say, look how great we did it, and go home and go back to how we were, but rather it's a means to draw nearness to Allah subhanahu wa ta'ala. This is what we're trying to achieve, nearness to Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, He says, لِلَّذِينَ أَحْسَنَ الْحُسْنَى وَالْزِيَادَةِ, those who do good in this world will have good, meaning Jannah. Ziyada, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam explaining Ziyada, to gaze upon Allah Most High. Allah ya Sayyid as-Salam, ya Nabi Allah.
ixtifaalka nabiga sala allahu calayhi wasalama dhalashadiisa loo samaynayo qur'aanka ayaan ka qaadanaynaa waa deliilka koowaad ee marjica aheen u laabanayna waa qur'aanka kariimka ah qur'aanka ayaannu ka qaadanaynaa ixtifaalka nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu ku leeyahay qul bifadlillaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun qul waxaad tidhaahdaa bifadlillaahi ilaahay fadligiisa iyo waraxmatihi naxariistiisa fabidaalika falyafraxuu mufasiriintu way fasireen aayaddan jalaaluddiin suyuudi ayaa fasiray kitaabkiisa adduraru lmanhuur wuxuu leeyahay fadlullaahi alcilmu waraxmatuhu annabiyu sala allahu calayhi wasalam kadaalika sidaasoo kale waxaa fasirayo asaguna mufasirka weyn kitaabkiisa yacni ruuxulbayaan aaluusi alimaamu alaaluusi ruuxulbayaankiisa wuxuu ku leeyahay waalraxmatu fii haadihi alaaya huwa annabiyu sala allahu calayhi wasalam markaasay labaduba waxay leeyihiin waa liqowlihi tacaala wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin li'anna tafsiirka markay culummadu ka hadlayaan waxay leeyihiin tafsiiru lwaaridi bilwaarid waa tafsiirka koowaad ee ugu horreeyee la qaadanayo markaad aayaddan macnaheeda doonayso aayadda kale macnaha ay ku tusay inaad ku fasirto ama xadiidka saxiixa macnaha uu ku tusay inaad ku fasirto waa tafsiirka koowaad ee ugu horreeya tafsiiru lwaaridi bilwaarid marka aayaddan raxmadda ku soo aroortay waxaa inoo fasirayso aayadda kale oo ilaahay uu rasuulka ku sheegay sala allahu calayhi wasalam inuu raxmad yahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kadaalika saasoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka noogu leeyahay wa kullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak nebi moxamedow salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waxaan kaaga qisoonaynaa qur-aanka dhexdiisa wax aan qalbigaaga ku sugaynaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala haddii qisasul ambiyaa ambiyadii hore iyo ummadahoodii iyo wixii dhex maray iyo qisaskoodii hadday qalbiga nabiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh oo khayru khalqillaahi ah ay ilaahay ku adkeeyee tahbiit ay u noqoto annaga oo ummaddiisii ah haddii nabiga calayhi salaatu wasalaamna looga sheekeeyo oo qisadiisa iyo siiradiisa aanu dhegaysanno waxaanu helaynaa iimaan iyo yaqiin baan helaynaa walaalayaal taa waa deliilka labaad wey haddii aan xagga sunnada u leexanno rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidka imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayo waxaa la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaad maalinka isniintaa u soomaysa muxuu nabigu ku jawaabay salawaatullaahi wasalaamu calayh daaka yowmun wulidtu fiihi wa unzila calay waxa maalinka isniinta aan u soomayo maalinka isniintaa waa maalintii lay dhalay waxyigana laygu soo deji saasay waxay leeyihiin muxadisiintu xadiidka imaamu muslim baa saxiixiisa ku warinaya waxay markaa leeyihiin muxadisiintu markay xadiidkaa ka hadlayaan nabigu salawaatullaahi wasalaamuhu calayh huwa awalu man ixtafala biwilaadatihi sala allahu calayhi wasalam dhalashadiisa qof u ixtifaalo nabigaa ugu horreeyey leanna wuxuu ku jawaabay maxaad u soomaysaa markii la yidhi cibaadadaa weyn oo soomkaa maxaad u samaynaysaa waa maalinkii la i dhalay saasaan u soomayaa oo macnaheedu waa maxay shukran lilaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay baan ku shukrinaya markaan isu imaanno oon siirada nabiga ka sheekayno naloo aqriyo tacdiimka nebiga siduu ilaahay u weyneeyey fadaa'isha ilaahay uu nabiga siiyey mucjizaadka uu ilaahay ku ayiday subxaanahu wa tacaala maxabbadiisa qiimada iyo fadliga ay leedahay waa shukran lilaahi subxaanahu wa tacaala iyo iimaan iyo yaqiin baa noo siyaadayso nabigeenna ayaan weynaynaynaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh sidoo kale muslim iyo bukhaariba waxay warinayaan cabdullaahi ibnu cabbaas baa laga warinayaa wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimid wuxuu u yimid yahuuddii madiine deganayd oo ixtifaalayso yowma caashuuraa soomayso yowma caashuura
markaasuu nebigu weydiiyey maxaad u soomaysaan waxay yidhaahdeen yoomkan waa yoom wanaagsan oo saalix ah waa yoomkii ilaahay uu badbaadiyey nebiyullaahi muuse iyo mu'miniintii fircoonna ilaahay uu halaagay iyo jundigiisa fanaxnu nasuumuhu shukran lilaahi subxaanahu wa tacaala muxuu nabigu ku jawaabay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh naxnu axaqu bimuusa minkum nabi muuse annagaa idinkaga owlaysan oo idinkaga xaqnimo badan fasaamahu wa amara bisiyaamihi maalinkii nebiyullaahi muuse ilaahay uu badbaadiyey darteed hadduu nabigu u soomay calayhi salaatu wasalaam oo cibaado lagu weyneeyey maalintii nebi maxamed uu dhashay ka warran salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh maalinkaasaa ka weyn oo ka fadli badan waa nasac sariixa oon meel laga mara lahayn oo ku tusinayo in loo ixtifaali karo dhalashada nabiga sala allahu calayhi wasalam alimaam ibnu xajar alcasqalaani wuxuu leeyahay labadan xadiid waa deliil iyo nas cad oo ku tusinaya oo sariixa ixtifaalka loo samaynayo dhalashada nabiga sala allahu calayhi wasalam deliilka saddexaad waa ijmaaca ummaddu waxay ku ijmaaceen 4 madhabood iyo a'immadii islaamkee muctabarka ahaa hadday muxadisiinta yihiin hadday mufasiriinta yihiin hadday fuqahada yihiin culamaa'u siyar wa taariikh hadday yihiin ummadiisa nabigana kiin loo ammaano aakhiri adduunkaba kiin loo iftiisho yaa rasuulallaahi nabiga muxamed nebigu calayhi salaatu wasalaam marka raxmaddaas ilaahay noo soo hadiyeeyey buu ah markii la aada nebiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii waxaan waa raxma bicadiisii waa raxma tacaamulkiisii iyo dadka si ula dhaqmayo waa raxmad iska socota buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markaad fiirso dadka si ula dhaqmayey dhibaatada uu kala kulmay dacwadii markuu faafinayey oo uu diintii gudbinahayey nebigu calayhi salaatu wasalaam waa aragteen quraysh wax aysan nebiga kula mucaamalin mucaamalo qaasiyaah oo kasta kula mucaamadan calayhi mandheer baa korka laga saara soo tukanayay maraa lagu ceejiyey godod baa loo qoday oo qodxa loo dhigay inuu ku dhaco nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisiiya baa laga soo saaray wixiisi baa la muraadaystay wax kastoo xumaata waa lagu sameeyey waa la jareexiyo waa la daqdaqray nebiga calayhi salaatu wasalaam maalinku uu maka qabsadayna muxuu yidhi maa taquuluuna annii faacilun bikum alyowm maxaad malaynaysin maanta inaan ku samaynayo markaasay yidhahdeen akhun kariim wabnu akhin kariim wuxuu ugu jawaabay laa tatriiba calaykum alyowma yakfir allahu lakum idhabuu fa antum dulaqaa qofna laba taabo ilaahay subxaanahu wa tacaala ee weynaantii nebiga uu weyneeyey ee laga hadlayay aad ogtihiin ka u diida muxuu mudanayaa haddii ilaahay xadiis qusi ku yidhi man caadaa lii weliyan faqad aadantu bilxarbi qofkii weli ilaahay leeyahay la colooba ilaah hadduu xarbo ogeysiiyey bal ka waran maxaa maanjabad ka weyn baa jirta rasuulullaahi maxamed ninka weynaanaysa diiday innaga meelaba inagoo bannaanaba kaa iyo ilaahay isu da horta wuxuu ku dhacaysa innagaa ilaah kuwaa inaguma daro darkay nebiga ilaahay naga waraabiyo maxabadda nebiga dartiis waxaa markaa yani aniga hal jaasba iga bannaan waxaa weeye aalubeytka waxay ka mid tahay nebiga weynayntiisa walaalayaalow aalubeytka iska dab bani haashim bin muطalib alcaqiil iyo alcabaas iyo iska reeb marka la gaaro faaduma zahra dhasheedii baa horta yani aad iyo aad yani inoogu weyn waa tii nebigu inagala ballamay aalubeytka oo dakarukum allah ahla beytii ku celceliyey kitaabka qur-aanka aalubeytkiina waa kii wanaga daarmo ogtihiin walaalayaal dadka qaar baa iska ilaaweyba oo shariif ma sharafa nafsahu iyo kumah maaha ninkii naftiisa sharifa yaa shariifa
وصفة الباري وخاتم رسله فأمينها المخصوص منه بفضله لا أدردر الشعر إن لم أمله في مدح أحمد لؤلؤا منظوما يا خير الأنام عليك السلام يا خير الأنام يا خير نبي ذاك الذي ذاب الزمان بذكره وتعذرت طرق الهدى من عذره وإذا النصيب رتب مر بقبره أهدى من المسك الزكي نسيما يا خير الأنام عليك السلام يا خير نبي ذاك ابن آمنة البشير المنذر السابق المزمل المدثر السابق المتقدم المتأخر حاوي المفاخر آخرا وقديما يا خير الأنام عليك السلام يا خير إلهي إذنكي روحي دنبيغي سلا دافو أيا دعادي سلا أقبلاي دنبيغينا الله دافو دنبيغينا الله دافو kii waalidiinteenna allaha dhaafo dembigeenna allaha dhaafo kii waalidiinteenna allaha dhaafo bijaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam dembigeenna allaha ku dhaafo ilaahay idankii qof kasta oo kurba haysa kurbada allaha ka qaado qof kasta oo kurba haysa kurbada allaha ka qaado kurbada way badan tahay mid adduunyay noqon kartaa mid awlaad bay noqon kartaa ilaahay idinkii awlaadda allaha noo hagaajiyo awlaadda allaha noo hagaajiyo ilaahay idinkii qofkii jiran allaha caafiyo qofkii jiran allaha caafiyo qofkii jiraan allaha caafiyo qofkii cilmi raba cilmi allaha siiyo ruuxii raba dunya allaha siiyo ilaahay idamkiisa awlaadda allaha noo hagaajiyo muslimiinta iyo mu'miniinta xabsiyada ku jira xabsiyada allaha ka soo fakiyo inta kurbaysan kurbada allaha ka qaado ilaahay idamkiisa cadow badan baa ahlu sunna wal jamaaca leeyihiin ilaahay idamkii cadowga allaha ka qabto ilaahay idamkii cadowga allaha ka qabto diinteenna kor allaha ka dhigo ahlu sunna wal jamaaca kor allaha ka dhigo علماءنا أجلدا إلهي إذن كي عمري قوضا الله ديريو أننا إلهي إذن كي كوي علمي قوضا كو عمل فلا الله نقدقو إلهي إذن كي قف كستو مسلم أهو كربايسا كربادا الله كقاضو كربادا إلهي إذن كي مسلمين الله كفيدو بجاه محمد صلى الله عليه وسلم الله وقفيدو إلهي إذن كي قف كستا وحو نيستي oo khayra ilaahay idinki qalbiga ku qabto shuusha Cabdiqaadir noo sheegay ilaahay idinki ducadu waa aqbal ilaahay idinki qalbigiisa ha lagu qabto qalbiga ha lagu qabto qof kasta wuxuu rabo ilaahay idinki dambigeena Allah dhaafo ilaahay idinki kuwa shafaacada nabiga kaleey salaatu wasalaam oo shafaaca Allah nagu daro kuwa xawdka nabiga ka caba Allah nagu daro faatiha